taniya markii abaartu ay soo bilaabatay bartamihii sanadkii tagay ee 2016 waxaa jiray tilaabooyin samatabbixin loogu samaynayo dadku abaarta ay ku dhufatay ee ku sugan deegaanada dalka kuwa ay qaadanayaan dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dal iyo dibadba waxaa sidoo kale jiray hay'adaha culimada Soomaaliyeed oo iyagu ku dhawaaqay soona 3 maalmood ah iyo roobdoona taasoo laga duceysanayo musiibada abaarta ay soo wajahday dalka tilaabooyinkan waxaa sidoo kale kaalin muhiim ah ka qaadanayay bulshada qaybaheeda kala duwan qaasatan kuwa wax ka barta jaamacadaha dalka oo iyagu wada aruurinta kaalmooyin isugu jira waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha sida cunnada cabitaanka iyo dharka waxaanu la kulanay qaar ka mid ah jaamacadaha iyagu gartay doorkooda ku aadan walaalahooda gaajada u dhimanaya waxa ay kaga baahan yihiin una istaagay inay ka falceliyaan waxaana booqnay jaamacadda Soomaaliya lana kulanay qaar ka mid ah maamulka iyo ardayda iyagu u xilsaaran ololaha ku aadan gargaarkan waxayna inaga warbixiyeen waxa ay ka qabteen iyo sidoo kale waxa ay fariin u direen dhigooda ardayda ah ee ku sugan jaamacadaha dalka jaamacadda Soomaaliya qaabka ay ugu diyaarisay inay ka jawaabto baahida taagan hadda abaartan baahisay daafaha Soomaaliya ru'aantii jaamacadda waxay sameysay qaabab weyn oo ugu jawaabi karto barnaamijkaas waxaan sameynay salaado inaan u tukano aan Ilaahay u toogno in mataqaana Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka qaado abaarahan Soomaaliya goboladeeda sidoo kale waxaan sameynay 2 maalin ayaan u tukanay waxaan kaloo sameynay ardayda yani digita departmentiga kala duwan inaan ugu yeerno inay ka qayb qaataan walaalahooda gaajeysan u dhimanayo oon iyo baahi inay ka qayb qaataan ru'aantii waxaan ugu baaqi lahaa jaamacadaha yani ka jira Soomaaliya inay ka jawaabaan waxaan mataqaana wax loo fadhiyo waxyaalo mas'uuliyadna saaran waay haddaanan anaga dareemin jaamacad ahaan oo dadkii wax bartay oo dareemaya bani'aadanimada waxay tahay dareemaya haddana anaga ka jawaabo waxay tahay yani qof kale loogu fadhiyo maanta inuu ka jawaabo waxaan ugu boorinayaa aan ku tartanno sidaan ugu jawaabi lahayn baahidan mataqaana taagan abaartan walaalihiina mataqaana dabar jartay sidoo kale jaamacadda yani sida ay ugu jawaabtay waxa ugu daysanayo institutionada kale yani ka jira daafaha Soomaaliya kulay qof kasto damiir leh يعني وكو قصبين إنه استاجو أسوق قفنا مجاعبين قف كستو ضمير لسبته حي وعي أن كتير نمان تصا وقف بقى وأجي هاي ما كي وعي جالس لقتك هذا أنا وحوي حنونكو قفل بقى وطابنا أنا كشخصية هم كان تابتو يعني لا بقى ولا لا كشخصية هم كان كهذا ميت كان شام عدا كود إنه هنا السوشي كقريبا أقابل سن أبارها ما كل لقته حافظ إذا أنا وكولا كجامعة هان أنا وحام بنامني برامج أو ما قدرنا يقول مدي جرجر ودتك ولا عليه أنا حوالي كذا معدن oo soo galay beledka iyo kuwa banaanada jiraba sidii loogu tabaruci lahaay anagoo dhowr qodob isbarbar dhignay koow ardayda in laga aruuriyo iyo jaamacadda iyo dhammaan lacag oo loo dhan yahay oo gudoomiyaha jaamacadda uu sareeyo iyo ardayda dhammaan loo sameeyay in lacag laga aruuriyo fayska koobaad midka labaad in la sameeyo qofkii raashin iyo qofkii biyo iyo cunto awooda iyo midkii awooda mataqaana dhar awooda dhammaan in la soo aruuriyo فويسكي ورا هذا ونور دمار الحمد لله ودنك dhibaatada ka jirta qof moogna ma jiro dhanka kale waxaan ayana la kulanay maamulka macallimiinta iyo waliba hoggaanka ardayda jaamacadda Simad waxaana dhankooda ay ka hadleen sida ay uga falceliyeen iyo qorshahooda kale ee uga dagsan tilaabadan waxa ayna sidoo kale baaq u jeediyeen ardayda iyo daayarta kale ee ku sugan dalka inay u istaagaan gurmadkan abaarta hadda jirto runtii waxaan kula talin lahay dhammaan inta bulshada wax tari karto inay wax tarto inta aan waxba haysan oo maanta ay abaarta saameynayso hadii ay noqon lahayd xoog iyo hadii ay noqon lahayd maal iyo hadii ay noqon lahayd inta qof walba wixii uu awoodo in markaas uu dadkaas uu ku saacido oo wax uu qabto insha Allah ka macallin ahaan waxaan nafsidahantii diyaar u ahay inaan ka qayb qaato barnaamijkaas waxaan ku boorinayaa dhammaan macallimiinta Soomaalida meel walba ay joogaan in barnaamijkaas ay ka qayb qaataan oo isku dayaan sidii abaartaas dadka saameysay ay u badbaadin lahaayeen naftooda si ay mustaqbalkooda ay u dhisi lahaayeen isla markaasna aysan u baabi'in jiritaanka dadkaas sida ogtahan dalka waxa ka jiro xaalado aad u xun oo abaar ah oo saameeyay dadkii dunidii xaaladaha noocaas ah
haddii ay sii bataan oo aan faragelin lagu samaynin oo wax laga qabanin dhibaato middan ka badan ay sii geysan doonaan sidaas daraaddeed bulshada Soomaaliyeed waxaa la joogaa xilliga ay isku gurma lahaayeen waxaa loo baahan yahay intii aan gacmo shisheeye wax ka sug lahayn qof kasta halka doolar oo hayo halka senti uu hayo inuu wax ka bixiyo ayay hawsha noo maraysaa lacaga ayaa noo soo aruuray qaybo ka mid ah dhar ayaa noola keenay ardayda qaar waxay noo keenay raashimo waxaan rajaynaynaa inaan gaarsiin doono walaalina masaakiimaha ee dhibaataysan inaan gaarsiino maxaa la yidhahdaa raashin iyo maxaa la yidhahdaa iyo daawooyin kala duwan inaan gaarsiinaan rajaynaynaa anagoo ah ardayda jaamacadda simad khaasatan waxaan u istaagnay inaan ka qayb qaadano badbaadinta ummadeena waxaan ku boorinayaa jaamacadaha kale oo dhigeena inay ka qayb qaataan in ummadeena ay u istaagaan ay badbaadiyaan ummadan iscaawinin yani cid caawinaysa ma jirto ma ahan inaan gargaar yani ka sugno hay-ado caalami ah iyo dad shisheeye inaan gacanteena ku tashano waayo waa awoodnaa inaan yani dadkeena badbaadino marka dee waxaan ka codsanaynaa walaalaheena Soomaaliyeed khaasatan dhalinyarada inay kaalintooda qaataan oo ay ka qayb qaataan $1 maanta u deeqaan walaalaheena wax badan ay ka caawin karaan waxaa laga yaabaa inay u dhimanayaan biyo la'aan darteed oo runtii biyo la'aan inay hayso qof maanta biyo caba u dhimanaya runtii waa dareemi kartaa meesha xaalka uu marayo wax cunadu waa iskala taga dabaan marka waxaan ka rabnaa walaalaheena inay soo yaraysan waxay hayaan maanta wax waliba ay ahaato inaysan kala bakhiilin inay kala qayb qaataan ardayda jaamacaddana xanuun baaqa ayagana runtii kaalintooda wada inay sii adkeeyaan u gargaaridda dadka tabaalaysan ma ahan mid looga fadhiyo oo keliya madaxda dowladda ama hay-adaha caalamiga ah waxaa sidoo kale lafdhabar u ah bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan ardayda wax ka barata jaamacadaha dalka oo iyagu hadda fahmay doorkooda ku aadan arrintan maxamed cumar cabdinuur dhaqane goobjoog TV